هادو سعن ما يسيء وردو توس هادو سعن ما يسيء وردو توس وردو توس وردو توس توس وردو توس وردو توس توس هادو سعن ما يسيء وردو توس هادو سعن ما يسيء وردو توس حليس بانركا فرحن وماك بانركا يوبن هب هب بانركا بينا هاجر هاجر بانركا آسن حليس بانركا فرحن وماك بانركا يوبن هب هب بانركا بينا هاجر هاجر بانركا آسن سومالينا أقروي اسمه راضو بلوي اسكو هذا لا يدينا سومالينا أقروي اسمه راضو بلوي اسكو هذا لا يدينا هو يدينا وعيدا ما انت نار البلاعي هلا بالانقلب عمودا سومالينا أقروي اسمه راضو
waxaan inga soo booqannay ilaa magaalada Wajeer ilaa halkaas waxaan soo marnay Bilcil Buurbuur waxaan soo marnay kursi waxaan soo marnay Madeesa waxaan soo marnay Tuulo Xagar waxaan soo marnay Taqsiila waxaan soo marnay Odijiro waxaan soo marnay Furbaati meel tuule oo ciidahan ay degan yihiin oon tagin way yar yihiin ayagana waan tagaynaa insha Allah annaga waxaan inta u maraynaa muraadaan leenahay reer Wajeer South aan muraad ka leenahay reer Wajeer South aan rabnaa inay wax na siiyaan reer Wajeer South aabbayaalkayn hooyayaalkayn walaalahayn aan rabnaa inay wax noogu deeqaan annagoo ka imaanay Wajeer South annagoo ka imaanay Wajeer South annagoo ka imaanay Habaasweyne annagoo in la degan Haaro annagoo in la degan Kaaru waxaan rabnaa inaan ogeysiino inaan wadana u taagan gambarka kansalaga ama MCA-ga Lagboqol South oo magaciisana uu yahay Cabdullaahi Maxamed Saacow gacan cabkumaan taagine inta meesha taagan xagga fiiriya soo ma garanaysiin marka walaaloosimow waxaan inga baryaynaa inaad gacanta la qabatiin inaadna daadihisiin kuurihiinaan wax ku noqonaynaa inaadna surbisiin inaadna faraxsisiin annagana aan iin ducayno abaalkiinana aan gudno Haaro meel ay ka maqan tahay Lagboqol South way maqan tahay marka waxaan rabnaa codkiina inaad si buuxda nagu siisiin sidaa awgeed aniga waxaan nahay nin hooyayaalka iyo gabdhaha aad ula jira gabdhaha iyo hooyayaalka codkoodan aad u rabaa markuu magaciisa yahay anigana waxaa la dhahaa Mukhtaar Axmed Macallin Xasan aabiisna waxaa waaya Maxamed Ismaaciil Macallin Xasan adeer laxmiyaan waay maanta wiilkaasayto haqaan ku wada qalad kuma wadi dulmi kuma wadi wanaagaan u raadinhaya inuu dhulkii uu ka dhashay uu madax ka dhago sidaa awgeed inaan waqtiga aan inku sii dhumiy ma rabi nin meesha reyaaro waana salaama 114ka ani wiilkiina yahay inay dhasho maxamed maleela cabdulluxmo way dhale reebayatiin hada wiilka martay miniya oo maleela cabdullaahi maxamed saaxo hada sida aan ku hadalay hada min xunaa soo galay 12 saac la duwa meelo fara badan aan soo marnay hadalkiisa waxaan ka maqlay caaw haaraan baryaa وسوسان كلكم معها ودياش لكم بالعانت لكم دليرت لكم تيشاتما لكم ودي عوام برينا بروان جينا رهاروها مسناي ودينتا دعم فرنا نوسدين دونتينا اوكي انيكو رالي مايكروفون waxaan ku wareejinaa Mheshimiwa Cabdullaahi Maxamed Saaxo hadii waxaan uga xusanaha dacmo furana hal mar inta Mheshimiwa karibu Assalamu alaikum rehaare Assalamu alaikum nabad ma jirtaa maxaad ku ergasheen magaalada marka waa maadsantihiin magaalada waxaan u maraynaa raggeeda waa fadhiyaan bilcaan ba hadda badan arkaa maamulka guriga iyo maamulka magaalada idin waligeed bilcaan ba hayse nin walba horumarina bilcaan ba ka dambaysa marka waa maadsantihiin hooyooyinka soo dhaweynta aad noo fidiseen aabbayaalka wixii haddan arkaya iyagana way mahadsan yihiin magaaladiinan caaw bari sidii la sheegay Cabdullaahi Maxamed Saacow waxaan u malaynaa dhagiina kuma cusbo nin aqoon aad u leedihiin waaye wiilkiina waaye kursiga Lagboqol South ayuu loolamayaa dhalinyarta loolamaysa ayuu ka mid yahay madaxnimadana ilaahay ayaa bixiyaa ciduu doonu siiyaa ciduu doonu ka qaadaa nin maanta sheegay khidmaa jira kursi cid ku fariisanayso warna sheegay khidmaa jira maya aniga waxaan diyaar u ahay inaan maaragtay dadkayga u shaqeeyo Lagboqol South u shaqeeyo oo maaragtay aan idin adeego oo maaragtay aan idin xoreeyo horumar aan keeno hadday noqoto xagga tacliinta xagga caafimaadka xagga maamooyinka ganacsigooda haarna waxaan u malaynaa 5 sano soo dhaafne
weli intana baa magaaladeeda ilaa iyo hadda dadku waxay horumar laayeen waxaa waaye dad waxaa jira cartels af ingiriis lagu dhaho dadka ayaga ah waa reehaare inay aheena laga yaabaa ree wajeer iyo reehabaas weyne meelaha inay inkiin ka maadeena laga yaabaa contract ay idinku soo qaadanayaan contract markay idinku soo qaataan wixii faa'iido ay ka helaanna magaalooyinkooda ku dhisaan haare kuma dhisaan aniga haddii ilaahay igu guuleeyo kursigan waxaan idin ballan qaadayaa contract ama maaragta wixii horumar oo magaalada la gelinaya dadka magaalada degan inay lahaadaan oo maalooyin leh oo maaragta aabooyin leh oo dhalinyar leh soomayna garmin maasha allah magaaladiina horumarkeeda waxaa ii sheegi magaaladiina horumarkeeda idinkaa iskale soomaa garmin ninka madaxda ee wax yaran buu qaban karaa dadka bulshada haddii magaaladooda horumar ay u aheen soomaalida waxay dhahdaa caato ninkeeda ku jiifo ma kacdo magaaladiina idinka haddaad ku jiiftiin 20 sana soo dhaafnay haare qodqod sidan bay ahaani jidka iyadoo magaalada la dhex maraa ilmaha gaariyaan laga yarfanayn buu ahaani haddii madax mar walba aad qabiil ku soo dooratiin ood qoys ku soo dooratiin iyo jifi iyo wax loo jirin marka waxaan inii sheegay aniga waxaan idinka ballan qaaday madax waxaa la jira madax oo maaragtay ilaahay ka baqayso oo hufnaan iyo maaragtay cadaalad leh oo maaragtay horumar aad iyo aad maaragtay u horseedi doonto ayaan idiin ballan qaadaya ilaahayna waan la kaashanaya haddaan kursigan ku guulaysto haana qodqod jidkan waan ka wareejinaynaa magaalada dhexdeeda carruurtooda ka taraarayso magaaladana planning wax la dhahayo ayaa loo samaynaya magaalada hadda xaafadihii maasha allah magaalada hadda xaafadihii iyo suuqii wuu isdhex yaallaa sidaa iyadana magaalada maamulkeeda kuma fiicno maamulka magaalada county governmentka lacag ay ku bixisaa maamul kastoo magaalo kasta lagu hagaajiyo marka waxaad yeelaysiin qofka aad soo dooratiin waxaa la rabaa inaad la xisaabtantiin meeshaan gobana ayaad ka soo codaysiin mb aad u soo codaysiin senator aad u soo codaysiin woman rep aad u codaysiin 5 sano markii la joogana kulli waxaa calaacal iyo eeg iyo buuq baad ku jiraysiin waqtigiina sidaas uu idinkaga dhammaaday 5 kale haddana imaani nin walba ninka ciddiisu maaragta uu darabta haystaa wiilkayna soo gala gabadhayna soo geli gabadhiina wiilkiina soo galaane maxay u qabanayaan magaaladaada ilmahaada iskuulkooda maxay ka bedelayaan caafimaadka carruurtaada iyo bilcaanta maaragta urureyda maxay ka bedelayaan inaad is weydiisiin su-aashaas ayaa muhiima reehaare waxaan idiin sheegi madax ilaahay baa bixiyaa madaxda qaarkoodna maaragtay imtixaan waayo idinkana lagu imtixaami qabiilka aad jeceshiin ayaanu la raaci aniga nin qabiil ku salaysan miihi nin waxaan ahay dadkii oo madaxnimo u soo doortaan inuu u shaqeeyo oo maaragtay uu u dadaalo oo horumar u gaarsiiyo diyaar wah marka hadalka idinkuma sii dheeraynaayi magaaladiinan caaw seexani qoys walbana waan la kulmi ilaa qabiilkii lagama maarmaayo laakiin qabyaaladda ayaa xun in qabyaaladu isku raaco ayaa xun marka maadaama ay sidaa tahay magaaladan joogaa magaaladan biro ilaa casirkii waan joogi inta maaragtay magaaladan aan la kulmi kara dad waan la kulmi waan wada hadlaynaa meelaan wax wada dhiganaynaa waan wada tashanaynaa marka walaalayaal waxaan idinka baryayaa inaad kuurihiinna iigu deeqdaan codkiina iigu deeqdaan faatixadiina iyo ducadiinana aad iigu deeqdaan intaas ayaan idinku codsanayaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu